markaan halkan waxaan la taagan fanaanadeena weyn Xamdi Bilan oo si wacan oo qof meeshan taagan ugu horeen horta isku qalmaan labadan qofooda xamee hor isku gaadgaadayeen le abin dareenkay ka waran dareenkay aad iyo aad dareenkay aad iyo aad waa manaha malqaasi kar dareenkayga yani waa isku qalmaana qof kasto islaam gabadha iyo wiilku haday islaam yihiin way isku banaawen isku xirnaysaa man kullu oo meeshan taagan iyo walaashayna abyan halkan ku sugan iyadana ma isku qalmaan waa labadan maanta waxaa duubi doonaa muuqaal challenge-aas waxaa ku tartamayno aniga iyo walaashayda abyan oo janaalka ku cusub waxaan samaynaynaa aniga abyan istaagayno sidoo oo hore oo barateen bulshada wuxuu weydiin doonaa su'aalahaas oo ah wiilkan iyo gabartan Salmaan iyo abyan isku qalmaan bulshada falcelintooda iyo jawaabtooda arkeena muuqaalkeena hadda noo bilaabnay aniga ayada waa iska aamusnaanaynaa bas waa iska taagnaanaynaa laakiinse ninkan bulshada ku nool Muqdisho su'aal weydiinaa wuxuu dhahaa gabartan iyo wiilkan isku soo baxayaan qofkii ma yidhaah su'aal kale oo sii weydiinaa maxaa ku diiday qofkii haa oo dhaana maxaa isku doortay oo dhahaa marka barnaamijkeena maanta noocaas oo ku saabsan yahay asxaabta isla socod wanaagsan abyan aye maxaa kale barnaamijkaas okay waa safe waa barnaamij ya safe waa aad iyo aad marka abaabada laga rabo barnaamijkeena daadiisi والله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا سلام كله official. ما أنت جالنجي هو كدوينيا. دي ترتموين أبين سلمان كله. طلع مركز يا قوم قاعد دونا واي. إن شاء الله إذا كانوا عارجين هنا إن نصيف عنه دعوة دونتان إن شاء الله. أركتي دينا أنا كي وحول بلو سمينا على سبسكرايب لايك وعسنا نقول عزين أنا وصو شفوفي. aad iyo aad marka barnaamijkeena hadda noo bilaabana ani abyan sidoo hore idinku sheegay waa aamusnaan doonaa sidoo qofka imaanaya su'aasha oo weydiinaya labadan qof isku soo baxayaan asaa weydiinaa qofka marka la weydiinaya su'aasha jawaabta say ku xiran tahay barnaamijkan barnaamij aad u xiiso badan waaye asxaabta nala socda hadda noo bilaabanaya let's go haddana waxaa nala taagan shacabka mid ka mid ah oo barnaamijka rabo inuu nala qayb qaato insha Allah su'aaladan weydiinaa waxaan rajaynayaa marka su'aalahaas inuu si rasmi ah ugu jawaabi doono insha Allah marka hore assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh calaykum asalaam waraxmatullaahi wabarakaatuh challenge-yan diyaar u tahay Soomaali ina su'aalaadka weydiiyo meeshan waxaa ku tartamooy wiil iyo gabar waa Salmaan Kulu iyo Abyan marka waxaan rabaa su'aalan ku weydiinaa hal su'aal iska basiid ee leeyahay marka si sax ah adoo ka fikirayna u jawaabtiin rabaa marka su'aashu ku weydiinayo waxay tahay Salmaan Kulu iyo Abyan ma isku qalmaan wiilkan iyo gabadhan ma isku qalmaan su'aashan ku weydiinay taas waay isku qalmaan taageerta waa isku qalmaan okay waayahay maadaama aha dhaaday waxaan rabaa marka su'aal labaad inaan ku weydiiyo waxaa noo sheegtaa sababta ay isku qalmaan wax yar faahfaahin ma naga sii kartaa faahfaahin oo sii haye waxay isku qalmaan furfurnaas inuu furfuran yahay أنا ما زلت شايفك أنا مركود مرة مرة سدحت هذا وكوم بتعلنها شايف يعني لقي أقولي وحون نخذي ويل كان نصيبه يشتي أنا سيرسمي ونقول جوا وحيري ويل كان جونا بسكو خلمان أنا أسباب تسكو خلمان ودي وحيري لفظ بالله معنا بشاش إسكا كله وحوه waxaan ka dhigi karana malan saaxiib aad oo maasantahay aad labaad iyo barnaamijkeena hadda maanta waxa halkan ku tartamooy Salmaan Kulu iyo Abyan maanta waxa way faano la farqa ma khadna waa baash yaa guuleysan doon waayahay ninkii labaad waay oo su'aasha nasiib u yeeshay in la weydiiyo saaxiib markii wadi mar labaad soo dhawaad assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh waalaikum salaam waraxmatullaahi wabarakaatuh waa bro waayahay aniyo challenge-yan maanta waxa ku tartamooy Salmaan Kulu iyo Abyan waxaan rabaa inaan su'aalka weydiiyo waxaan rabaa si rasmi ah oo ka fikirayo inaan ka jawaabtidaan rabaa diyaar u tahay Soomaan diyaar u tahay safaan waayahay su'aashan ku weydiinayo waxay noqonaysaa Salmaan Kulu oo meeshan taagan iyo walaashayna Abyan halkan ku sugan iyadana ma isku qalmaan waa labadan aad isku qalmaan markooda doctor waa isku qalmaan miya safaan isku qalmaan su'aasha labaad aan ku weydiinayo maadaama su'aasha kooda ka jawaabday aad dhahday waa isku qalmaan su'aasha labaad aan ku weydiinayo waxay noqonaysaa waxaynu manoo sheegi kartaa asbaabta ama sababta ay labadan qof ee iskugu qalmaan waa isku qalmaan sababta iskugu qalmaanna waxa waaye waa laba qof oo Soomaali ah oo nasiib isugu yeeshay ayagoo Soomaali ah inay isguursadaan magarad
inkastoo ayaantan macnaha gabdhaha Soomaaliyeed ay niman aadayaan shiinas iyo balaayo ay ka dabaroogayaan oo wiilashooda Soomaaliyeed ordayaan hadirtan waxaa leeyahay Abyan iyo Salmaan waa dad aad iyo aad macnaha nasiib isugu yeeshay ilaahayna calaf isugu daro wiil iyo caano gabar iyo caano أهلا ومرحبا داوديال نكي لباد أو سؤال نصيب ويشتي نصيب صح أيوه وجواوي إن شاء الله مركز صاحب وعنقول لي هاي قولي شو عشان وعاء زائد وقفر حلو زائد منها وقفر حلو سلمان كلو رينجيز ولا شو قوي كده أبيض رينجيز سوي كل ما هي قبضها وبراس انتيمو ويا سدحات برامج كان نسوقنا ان شاء الله انا وما سنت صاحب خذوا واخوك السدحات برامج كان جالنج انا قلت قادنو سلمان كلو iyo Abyan ina isku qalmaani in kale ويا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته عليكم السلام ورحمه الله وبركاته انا soo dhawow adar maxan jalanjiyan wuxuu dhaxmaraya labadan qofood ee meeshan taagan su'aashu waraysu weydiinaya waxay tahay wiilkan iyo gabadha meeshan taagan ma isku qalman waa isku qalman waayahay su'aashu warays waa ka jawaabtay waxaan rabaa marka asbaabta ama sababta ee isku qalman waa isku qalman laba qofood oo dhalinyaro ah Soomaali oo haddana Islaam ah sax Islaam waa isku qalman diinta isku banay isku qalman ayo ma santa adeer macaan su'aalaha aad oo dhameystay meeshan waxa waaye ani waxaan rabi nin oo horta aad u xabsinayo qof ogaaya aad u xabsinayo gabadha madaaya nin ogaaya xabsinayo waxay isleeyahay marka dadka inta imaado ama ku istaaniyo kan asaan aaba saan ee gabar siisanaa camal ama wala siinaya qof kasto Islaam gabadha iyo wiilku haday Islaam yihiin way isku banayeen isku xirnaa waayahay Abyan maxaa kala leedahay ilaa hadda ma arkin qof oo dhahan isku qalmo waraadino jamiico adar ma santahay asxaabta waa u jeedin su'aalaha isku jawaabaha isku mid ay noqdeen ani Abyan halkaan taaganahay Abyan way naxsantahay anna waa naxsanahay Abyan ay okay hadina qof keeni qofkeeni xiga oo afraad insha Allah wili waxaan ku guudi jirnaa barnaamijkii ahaa iyo challenge-gii ayaan ku guudi jirnaa halkaan waxaan ku tartamaya Salmaan Kulu iyo Abyan qofka afraad waxaan rabaa su'aasha inaan weydiiyo saaxib salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh soo dhawow وعليكم السلام ودوعي waayahay diyaar oo taa challenge ina ka qayb qaadatid ديار challenge wax kale ma ahan labadan qof meesha taagan waxa la rabaa marka su'aasha laga weydiiyo inaad ka jawaabtid ina isku qalmaan inaysan isku qalmin ايوه waxaan ka rabaa marka su'aasha waxay tagaysaa labadan qof meesha taagan waa Abyan iyo Salmaan Kulu labadan ma isku qalmaan لبدا مو واسكو قلمان si fiican u fiir saaxib si fiican u fiir indhaha ku siri ka fikir yani saaysta si fiican u fikir واسكو قلمان لبدا way isku qalmaan taagan tahay waayay ma noo sheegi kartaa asbaabta ama sababta isku qalmaan يعني صوبت منك دكان يعني دد او صومال وامانو صح يعني هدي اي اسفامي واسكو قلمان hadday iyaga isfahmeen واسكو قلمان way isku qalmaan aad oo maasan tahay haye Abyan aan kormara Salmaan joogaad Abyan aan kormara markaan Abyan ay dareenkaaga ka waran aad iyo aad ilaa hadda waxay sugo sameeyaan isku qalmaan lagu dhaw qofaas weeyaa اخ جيز هاي ولي سلمان هاي سلمان صاحب والله إلا هذا والله قف اسكو قلنتينا دام فاهمينو واسوينا قفنا دها دفك سو ما انا والله يسمي خير سوينا قطب واركينا سوينا قطب واركينا هاي صاحب هذا وما سنتاي ويلكم سو دبو wili waxaan ku jirnaa challenge-ni markaan waxaan helay gabadhii labaad oo challenge-an nagala qayb qaadan doonta insha Allah السلام عليكم وعليكم السلام walaal codkaaga kor u qaad السلام عليكم وعليكم السلام walaal ku soo dhawaw Salmaan Kulu official هيا waayahay diyaar oo taa challenge-ana qayb qaaday Soomaan ها waayahay su'aashan ku weydiinayo waxay tahay challenge-an wuxuu u dhaxeeyaa labada qof meeshan taagan صح waxaan rabaa marka su'aalna ka weydiiyo inaad ka jawaabtid oo kaliya ka rabaa labada qof meeshan taagan waa Salmaan iyo Abyan ma isku qalmaan سلمان يا ابين ma isku qalmaan ها يس maxaa dhacday يس waa isku qalmaan miya ها waayahay ma noo sheegi kartaa asbaabta ama sababta ay isku qalmaan waxay suuq ma laba qof oo daayar ee waay waa isku qalmaan way is qaadan karaan muhiimadda ma aan qofka inuu yiri bas inuu weyn yahay muhiimadu waa doorasho ayaga is doorteen waa ku dhiirigelinayna waayahay hada ma santahay
انا هذا ما سنتها ولا شيء ذا انا ميكروفون كان وديبه هذا ما سنت ولا شيء سلمان ابو انا درينكايا بل كبرم والله هذا فرحي ام فاهمينه صح تنكك وتنافي ايغو وطن وي وطن نافي مقش يا وي سو تنافت ها هتسلمها وطن نافي لكن ابين درنكيد مش شيء كريم لكن انا جوابها لا يبحنوا هذا وفرحان انتي ما فرح سنتها مو عادي ابين هاي ودي اي ابين انا درينكاي كبرن درينكاي aad درينكاي aad iyo aad waa mo منها qiyaasi karo dareenkayga يعني waa ku faraxsan tahay challenge amaanta adi Salman kulini dhaxmaroy aad ku faraxsanahay جديد وقراعه يا وقراعه جديد مع واحد ميا الميريز ميا مكي قراعيس شفاي قراع علف كاسو عارف معاوي اي asxaabta u jeedin barnaamijkeen wuxuu ahaa doorasho ahaa dadka jawaaboodna waa aragteen barnaamijkeen naxbartamaha noo maraa ugu dambeena noo maraa marka asxaabta isla socod wanaagsan صاحب السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته kusoo dhawow channelka Salman Kulu official waan ku dhawaa walaal si fiican diyaar u tahay mo challenge ana ka qaadaydi si fiican challenge wax kale ma ahan labadan qof meesha taagan su'aalaga weydiina waa ka jawaabay leebis si fiican waayo su'aashu waraysa waxay tahay wiilkan iyo gabadha meesha taagan Salman iyo Abyan ma isku qalmaan si fiican way isku qalmaan waa isku qalmaamo si fiican ya fiican نسوفيري كنت سيفان إذا كنت سيفان نسوفيري علم معنا qiime asfiir anni fiiri هاي أبو شفي taas waa in qiimeeyaa هاي شفاهم خيمة جك أبو سمينه أنتوا سكاي كاميرا سكوا قبض أنتوا سك هاي si fiican way isku qalmaan واسكو خلما نتاجنت ويا سببت اسكو خلما منو شيء قرت أمر sababta ay isku qalmaan sababta laba qof oo dhalinyaro oo isku soo baxdo waay لو قف دلنيرة oo isku soo baxda ويا هذا ما سنتاي لكن ماشي دلنيرة متاجنا هذه صح يا لوسري صح maanahayn macmanin karay sanada taagana صاحب هذا ما سنتاي هذا ما سنتاي سو دغو سلمان كله اوفيشال marka lagu soo dhawo saaxib waayahay saaxib wiil waxaan ku guudi jirnaa barnaamijkii challenge ahay markaan halkan waxaan la taagan fanaanadeena weyn Xamdi Bilan oo si waxna u taqaanaan marka iyada oo nasiib u yeelatay inay challenge ka qayb qaadato assalaamu calaykum alaykum salaam fanaanadeena aan jecelnahay oo qarankeena oo ku faano waxaan ku leenahay ku soo dhawow Salman Kulu official oo ku dhawaay waa maasantiin waayahay su'aashan ku weydiinayo waxay tahay challenge-an wuxuu dhaxmaroyaa Salman Kulu iyo Abyan marka waxaan rabaa inaan wax ka weydiiyo labadan qof meeshan taagan ugu horreyn horta ma isku qalmaan labadan qofooda amee hor isku gaadgaadayeen le maligeeda laga yaabo miya laga yaabo jawaabtaada maxay noqotay ka labadooda isku fiiriyo lagama sheekay karsa isku soo baxaya la ilaha illa allah waayahay waxaan ku weydiinayaa marka sababta ama asbaabta ee iskugu qalmaan indhahooda ka dareemoya ma labadooda kala jejeesanayaan bidigal arooskeenna adaa iska qaadayo saacada bilaabo arooska adaa noo diyaarin haweenka adaa maasta fanaandiina waa maasantiin waayahay fanaanadeen adaa maasantahay soo dhawow marka asxaabta halkaan soo gaarteen please noo subscribe garee noo like garee muuqaalka saaxiibkaaga la wadaag aad iyo aad waa aragteen aniga Abyan iyo doorashooyinka dadka waa aragteen ma fahmino marka muuqaalkan hadduu si qurux badan idiin soo gaara ka heshay please commentina uu soo qoro sidoo ay muuqaalkan maxaa ka leedahay wallahi muuqaalkan waxa waaye muuqaal cajiib ee waa aad iyo aad waa challenge oo loo soo fikiri waay kan haye fahmino laakiin waxaa la yaabanaa mataqaanaa dadka dhan jawaabahooda waxaa la yaabanaya dadka horta فلم ناخذين إن هالمن لا يسحلوا من بينهم يا أبي وعايز تاي أما سلمان أقولي سهاي أما أبينا أقولي سني من أخف أقول درك راح بوايب أدي أنا متكلم عايز تاي أقول درسنا وعايز شفيق أنا أريد أقول درس بين أخوي سعب كي قرب ولا شيء مركا أصحابته إذا كانوا وعا محل شيء هذا أسكي جيجل فيو هكذا أصحابته إذا كانوا إذا كانوا مركا أنا كومنتي إنه وسوا غرتان labadan ina isku qalmaan in kale ina commenti aad iyo aad ku soo siisana laba commenti oo soo qora Abyan waa ujeedin oo cusub tahay fahmino reer hadal ma ala ka tobar Abyan walaashina Abyan channelku ku cusub tahay yani si fiican soo dhaweeyay fahmino marka waxa idin leenahay saas inoo geliyo